waxaa guud ahaanba maanta dunida islaamka looga dareeray oogidda salaada ciidda al-adxa ama ciidda carafo Somalilandna kuwaasun ayay ka mid ahayd. halkani waa magaalada Burco ee caasimadda u ah gobolka Togdheer waxaana boqolaal shacabka halkan kala qayb galay salaada ciidda agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha duqa degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer waxayna shacabka halkaasi kala wadaageen hambalyo iyo duco ku aadan munaasabadda ciidda sidoo kale waxay ka hadleen mowduucyo ku tacalluqa shaqada ay bulshada gobolka u hayaan. salaan halkan waxaan uga dirayaa ummadda islaamka reer Somaliland madaxweynaha qaranka golayaasha ciidamada qaranka iyo dhammaan shacabweynaha reer Burco waxaan leeyahay maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad qab iyo nabadgelyo haynagu gaarsiiyo waqtiyada soo socda xabaalaha in badan baynu ka shaqeynay kuwa aynu dhul u iibinay iyo kuwa aynu ka shaqeynay kuwa aynu dayray saakana war cusub baan idinka hay xabaalaha berigii hore xabaalo qod baa jooga meeshu doonaabuu qodaa nin walibana waa yimaada halku doonaabuu qotaa nidaamkii iyo habayntii iyo sarfaygii intuba waa ka lunsana waxaa kaloo iyaduna jirta habeenkii in dadka lagu aaso dadka habeenkii la aasayaana aynan xaqiijin karin waxay yihiin laba qodob waa joojinay maanta maqle reer Burco xabaalaha cusub shaqaalaha jooga waashmaanaha jooga diiwaangeliyayaal baa jooga qofka dhintay baa la diiwaan gelinayaa goortu dhintay baa la diiwaan gelinayaa halku ku dhintay iyo magaciisa la diiwaan gelinaya habeen wax la aasayaana waa ma jirto xabaalaha cusub markaynu imika u guurno habeen wax la aasi doonaa ma jirto 20 sano kadib haddii aad u baahato qofkii aad aastay waxaad soo helaysaa lambarkiisa halkuu ku aasan yahay goortii uu dhintay intaba waad soo helaysaa waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciid al-adxa awgeed dhammaan ummadda muslimiinta ee ku nool caalamka gaar ahaan dadweynaha reer Somaliland khusuusan dadweynaha gobolka Togdheer qurba joog iyo qolqol joogba ilaahay waxaan inooga baryayaa sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda iyo ciido kale oo fara badanba in ilaahay inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo inaan ka sheego hal qodob oo runtii muhiim ah nolosha mujtamaca gobolka Togdheer iyo mujtamaca reer Somaliland ba muhiim ah waxaad ogtihiin in xoolaha nool inay yihiin laf dhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland waxaad moodaa bariyahan dambe inay ku soo badanayaan ama ay maaragtay soo tarayaan in la sameeyo ama la abuurayo deegaamaysi cusub dhulkii dhuldaaqeenka ahaa ee xooluhu daaqayeen in la rabo in laga sameeyo deegaamaysi cusub gobolka waxa ka bilaabi doona hadii Ilaahay ka dhigo ay wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa gobolka intiisa kala ciidanka booliiska hawlgal lagu baabiinayo wax allaala iyo wixii ceshiimo sharci darro ah iyo wax allaala iyo wixii deegaamaysi cusub ee sharci darro hadday balli noqoto hadday waabab noqoto hadday moosas noqoto hadday beero noqoto lagu baabiinayo ka doonaya aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ciidamada qaranku meel ay joogaan baan salaamaya iyagana waliba kuwa jiida hore aad iyo aad buu mahadsantiin kullu caam wa antum bil khayr dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa dareenkooda iyo shucuurtooda ku aadan munaasabadda ciidda la wadaagay warbaahinta marka hore waxaanu leenahay ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu weydiisanaynaa inuu amaashana naga aqbalo ilaahay inuu dambigeena dhaafo inta ka bacdi waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel joogtaba waxaan si gaar ah u salaamayaa tahniyada ciidda ciid al-adxa ummadda reer Somaliland madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweynaha ku xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qaranka iyo bulshooyinka reer Somaliland ba Cabdi Shakuur Salebaan Cabdi Kariim telefishinka Horyaal